wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo maanta aan ku soo booqanay dukaanka Egyptian Bart Shop oo ku yaala magaalada Richfield oo ah magaalo aan sidaasi ugu sii fogeyn magaalada Minneapolis waxa halkaasi ganacsi ka furtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo waliba keenay ganacsiyo ka duwan kuwa Soomaalida inta badan lagu yaqaanay waxaan jeclahay in markani aan ku soo dhaweeyo telefishinka Universal milkiilayaasha iyo waliba maamulayaasha dukaanka waxaan jeclahay horta marka hore inaad maska iska dhigto intaad ii soo dhawaan waxa tahay nin geesi ah kulay magacaada igu bilow waa Jawhar wala Jawhar bal dukaankani goorma furteen bishii October of 2019 ma furo ganacsiyada Soomaalida ee lagu yaqaanay kani uu ka duwan yahay maxaa kugu dhaliyay inaad dukaankan furto runtaan ku sheegay adiga ilaa barigan yara xayawaanka waan jeclaa marka waxaan xukumi jiray dukaan la dhaho Pet Smart oo alaabta xayawaanka lagu iibiyo iyo waxyaalahaas kadib waxaan arkay ay dadku ay rabaan meel ka gaar ah oo xagga shimbiraha u badan iyo masaska iyo waxaas marka tamba fikrada la noqotay inaan furno waxaan jeclahay in dadka aan mid u tusno si daawadayaasha ay u arkaan qaybtaas xagga ayaa ka bilaabanaa kaasi waa maxay bahashan waxa la dhahaa blue iguana waxay ku jirtaa Soomaali waxa loo yaqaan maasluulay marka Florida iyo meelahaas hadda aad ugu badan yihiin waa la dhaqdaana dad badan baa aad u dhaqdo oo lacag badan baa laga bixiyaa bahash marka dadka Mareykanka way dhaqdaan aad u dhaqdaan ha Soomaaliduna way ka cabsadaan Soomaalida ma dhawaadaan okay way halkani maxaa ku jira meesha waxa ku jira oo jirjiroole baa loo yaqaanaa dadkan oo yaqaanaan Mareykanka waxa u yaqaanaan chameleon mar buu isbedelaa bahalkan isbedelka loo yaqaanaa marka hadda marka meesha ka soo saarina color madow ahaa aad wuxuu noqday blue iyo green iyo tan colors ku jirjiro noqday marka moodkiisa waxa lagu gartaa colorku noqdo marba marka haddii banaanka aan u bixino oo meel kale aan tagno colorkeeda ayuu yeelanayaa mar buu isbedeli markii wildka joogaana geedaha ay ku dhuntaan bay isku ekeysiyaan sadde loo garan waa waxaan speed lahayn oo aan orod ku dhaqaaqi karin oo tartiib u dhaqaaqay weey kuwana maxay ahayn mulac wala baalada neeto marka waa bahalayro adigu xagga daawashada oo loo iibsado marka dad badan baa xiibsanaya waxa sameeyaan dhir iyo waxyaalaha gelinayaan meesha waa la iibsanaya oo ku sii deyn marka waa wax xagga daawashada u roon marka waa muluc marka waa imisa ayaa iibsan marka anagu hadda noocan waxa la dhahaa Emerald Swift waxaan gadnaa konton marka qaar waxaa jira dadka xagga raqiiska rabana kan waxa la dhahaa no dadka in badan waxay yaqaanaan qalajes waxaan ku iibinaa $7 marka ayada waa buluci la oran jiray qoraansho aroortay buluc waajida ayaa halkan waxa lagu iibinayaa lacag gaaraysa $50 dhinaca noolaha biyaha haddii aan u soo weecano marka waa adigu waa fish waa kalluun baa loo yaqaanaa marka waa kalluunka la carbaysto kuwan waaweyn waxaa loo yaqaanaa waa goldfish labadan bahal waa diindiinka biyaha ku nool marka waa bahalaan tababaray oo carbaysan weeye marka diindiinta banaanka xataa waa loo soo bixin karaa ha marka wuxuu sameeyaa marna biyo ku nool yahay oo qoraxda isku dhigo baa loo sameeyaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan hore u sii soconno shimbirahani maxay ahaayeen shimbirahan marka waxaa la dhahaa waa budgie or budgeguard baa la dhahaa waa shimbira Australia laga keeno oo xagga shimbiraha hadla nooc ugu yar weeye uguna raqiisan xagga dadka ay awoodi karaan weeye marka shimbiraha hadda xagga ragga way hadlaan dumarka aad uma hadlaan laakiin hadda telefoonka waxa haday maqlaan way xasuusan way kugu soo celin karaan halkaas marka ragga iyo dumarka sidee loo kala ogaanayaa marka waxay leeyihiin wax la dhaho neer oo sankooda korkiisa ku yaala dumarkan wuxuu noqdaa pink to white raggan wuxuu noqdaa blue to purple qaybtan hoose maxaa ku jira meeshan hoose waxaa ku jira waxa la dhahaa hamsters waa jiir sign lahayn oo la dhaqdo oo xagga ciyaalka u fiican oo qaniyo badnayn oo la qaban karo lahayn karo oo dadka yaqaan hadda kuwan anagu carbaynay marka hadda bixitaankaas waxay rabaan in aan anagu qaadno hayno oo la taabtay rabaan waa dooli aan lahayn isla markaana caruurta u fiican maxay kaga duwan yihiin dowliyada xaafadaha iyo meelaha ganacsiyada soo gala oo dadka dhiba
kuwaasita waa kuwa dee sunaysan oo diseaseyaal iyo waxyaalahaas bay kuwaas lagu yaqaanaa. kuwana marka waa bahalo dee lagu soo koriyey meel nadaafada oo duran oo jirooyin iyo waxbaan qabin weeye baaladan. marka $15 ayaan la gadaa. wow shimbirahan marka ayaga waa familiga kuwa hadla weeye. marka waxaa la dhahaa conures. ayaga laftirkooda waxaa la keenaa South America. waa shimbir ayaguna dee aad u hadal fiican. marka shimbirta midba midda kasii fog tahay bay kasii hadal fiican tahay. marka kuwan hadda hadalkooda waa hadal aad fiican. waa kasii fasixsan yahay. waayahay waxaad sheegtay shimbiraha dhinacan haddii loo soo baxo inay ka cod macaan yihiin, bal kuwan waa sidee xaaladooda? marka kuwan way kasii wen yihiin shimbiraha kale. marka hadalkooda waa more clear. shimbirba shimbirtay kasii weyn tahay, way kasii hadal badan tahay, way kasii hadal karisan tahay. marka shimbirahaneeto luqad kastaad bari kartaa. marka haddaad Soomaali ku hadlayso, haddaad Spanish ku hadlayso, haddaad af Ingiriis ku hadlayso, wax walbaa la bari karaa. marka waa ayagana waxaa la dhahaa blue crown conure oo familiga horaan ku yaan fiirnay bay ku jiraan. marka taniyada already banaanka u soo baxday. markay saan oo kale banaanka u soo baxdo ma baxsanaysa miyaa? ma baxsanayso. marka hadda shimbirtan waa shimbir meel rescue nooga timid oo 10 family baa isku dayday inay hayso oo carbeyn weyday. waana shimbirahan dee marka inta la egyan way qaniya xanuun badan yihiin oo dee dhibaatadooda iska badan. marka hadda halkan lagu keenay, hadda anaa xogaa la shaqeeyay. marka hadda aad buu ii yaqaanaa. marka dadka kale markay ii soo dhawaadaan dadka laga celin, laakiin aniga aad bay garanayaan. marka kan oo kale qiimihiisa waa imis? hadda marka kan oo kale haddii la iibsanayo waa ilaa 3,500 ilaa 4,500 baa la siiyaa noocan. waxaan filayaa in tani ay Soomaali badan ay garan doonto, bal sharaxaad yar ka bixi ayagana. marka tan waa la yaqaanaa dee qof walba waa qooley, laakiin waa qooleyda Germany. qooleyda Germany waxay kaga fiican tahay qooleyada kale, way ka yar aqal badan tahay oo waa xagga carbeynaysa, waa si easy lagu carbeyn karaa. qof walba hadda anigu way yaqaanaan oo marka meesha galo way imaadaan. waa shimbir ogolna la hayo la taabto. marka intaas way kaga bedelan yihiin kuwa kale. baa la dhahaa shimbirtan. marka waxay ka imaadaan noocani ayaguna South America iyo Brazil iyo meelahaasaa laga helaa. marka waa kuwa hadla shimbiraha ugu waaweyn weeye xagga ka mida. marka hadda tan waa tu ayada dee anigu way taqaanaa, laakiin dadka inta badan ma taqaano. waana bahal dhaantayso dee aan dhaantay wax ku tababaray. hadda haddii aan u saaro dhaantadii Abwan Carlos iyo Axmed Shaqalle, miyaa noo ciyaaraysaa? waa ciyaar wax walba loo shido waa ku ciyaartaa ayadu. marba sida ayadu waa usually marmar bay yara shy tahay, laakiin inta badan waa ciyaari. waaya waxaan jeclahay inaan u saaro dhaantadii Abwan Carlos iyo Axmed Shaqalle iyo weliba Rooda Berlula. daawadayaal waa filayaa inaad soo aragteen qaybaha ugu muhiimsan ee dukaanka. waxaan hadda aan soo gaarnay qaybta ugu dambeyso oo sidoo kale ay waalidiin fara badan ay aad u xiiseen doonaan. adigoo ku soo dhawaanaya telefishinka Universal, qaybtan hadda aan ku sugannahay bal sharaxaad ka bixi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Universal aad baad mahadsantihiin. qaybtan waxaa loogu talagalay in todobada arooska haddii ay u baahdaan iyo caruuraha maaragtay habaarta dheegooda iyo qof alla qofkii u baahan ama shir iyo haddii wax ku qabsanayaan ayaa loogu talagalay. bal ka waran caruurta dhalashadooda oo kale? yes waa lagu sameynayaa caruur ama cadaan ahaado ama Soomaali ahaado, waxa la wixii caruur ee u baahan in loo sameeyo holiday oo sameynana insha Allah, iyo kuwa qalin jabiya labadaba. dadka hadda idin imaada ma Soomaali u badan yihiin mise dad kale aan Soomaali ahayn? waxa u badan ajnabi, waxa u badan cadaan, Soomaalina way timaadaan. kula tahay in Soomaalidu ay xiiseynayso dukaamada noocan oo kale ah ee waliba caruurta halkan ku dhalato oo kale aad u sii xiiseynayaan? kolley hore lama furi jirin, waa wax cusub aan magaalada ku soo biirinay in maaragta xayawaan ay oo wax walba ay Soomaali ka shaqeyso. marka waan filaynaa dadka inay aad u jeclaan doonaan insha Allah. aad baad mahadsan tahay. intaasi ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii gaarka ahaa
ee aan kusoo booqanay dukaankani oo ka duwan ganacsiyadii aad horey ugu taqaaneen ganacsiyada Soomaalida waxaana barnaamijkan idin socodsiinayay anigoo ah Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa nabadino nolol kulanti iyo amaana Allah